kusoo dhawaada channelka Banaadir Films waa Liibaan Ibraahim dhammaan inta channelka soo gasho waxaan idinka codsanayaa in aad channelka subscribe ku dhufataan aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan kaloo idin leeyahay Ramadan Kareem waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago muuqaal aan idinkugu sharaxayo habka loo saaro muuqaalka midabka ama color correction ka loo sameeyo iyo color grading wax la yiraahdo waxa ugu koowaad ugu muhiimsan waa color correction ka oo qaybta koowaad ah marka muuqaalka sida aad ka aragtaan muuqaalka hadda aan soo dhigay waa muuqaal aan midab iyo yani aan lahayn color oo dhan marka aan barnaamijka saa u soo geliyo sida aad ka aragtaan muuqaalka waxaan adeegsanayaa barnaamijka la yiraahdo Premiere Pro oo barnaamij aad loo adeegsada ah dadka professionalka videoyada maxaa la yiraahdaa ee soo saara muuqaalada ama muuqaalada qaabeeya ayaa aad iyo aad u adeegsada marka koowaad waxaan ku bilaabeynaa waxa la yiraahdo blackska ama madowga soo marka koowaad madowga ayaan tartiib kor u soo qaadeynaa marka madowga markii la rabo in maxaa la yiraahdaa kor loo soo qaado waxa waa bil cagsigeeda waxa la sameynayaa gadaal ayaa loo celinayaa si macnaha madowga uu soo muuqdo marka hadda saas ayaan sameynaynaa kadib haddana waxaan ku xijinaynaa whiteska oo cadaanka ah marka cadaanka hadii aad rabtid maxay waxay ku xiran tahay muuqaalka adiga ah haysata hadii uu cadaan fiican macnaha maxaa la yiraahdaa whiteska uu ku badan yahay maxaa la yiraahdaa midabka nuurka iftiinka uu ku badan yahay midaal ahaan whiteska asigana maxaa la yiraahdaa waxa sameynaysaa waa yareynaysaa si yani mugdigi iyo wixii maxaa la yiraahdaa uu soo yara muuqdo ayaa sameynaysaa laakiin ka taxadar ha ka badin hadii aad whiteska aad kor u qaado waxa dhacay maxaa la yiraahdaa in iftiin badan uu galo muuqaalkii taa oo aad luminayso marka waxa la yiraahdaa details badan hadii balaagina ay aad hoos u dhigto maxaa la yiraahdaa balaag badan yani aad midaal ahaan balaaga aad kor u soo qaado ayadana waxa dhacaysa maxaa la yiraahdaa in muuqaalka uu noqdo mugdi badan uu galo kadibna shucaac uu galo waxa la yiraahdaa inuu galo markaas maxaa la yiraahdaa grainy uu ka noqdo iyo shadowska waxa la yiraahdo ayadana shadowska waa muhiim hadii aan fiirino shadowska waxa la sameeyaa waa hooska waaye muuqaalka marka hoos ayuu leeyahay hooska ayaa marka waxa la yiraahdaa ayaa laga dhigayaa mugdigiisa ayaa la soo muujinayaa waa la soo kicinayaa ayadana marka waxay ku xiran tahay muuqaalkaaga inta uu yahay mar walba waxa waaye adiga muuqaalka aad soo duubtay ayuu ku xiran yahay inta shadowska inta aad u baahantay inta aad soo kicinayso aad soo muujinayso highlight-kana waxa waaye waa meesha maxaa la yiraahdaa muuqaalka iftiinkiisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo background-ki iyo wixii yani waxa muuqda ayaa macnaha maxaa la ayadana waa lagu daraa oo waxay ku xiran tahay asigana sidoo kale tood muuqaalka sida soo duubtay highlight-kiisa inta uu leeyahay hadii uu yar yahay highlight-ku waa soo muujinaysaa asigana waa soo kicinaysaa contrastingna aad iyo aad ayuu muhiim u yahay kan oo marka dot colorka asaari sida waa very important waxa waaye wuxuu sameynayaa mugdigi iyo maxaa la yiraahdaa ayuu kala kicinayaa asigana wuxuu u sameynayaa uu dhaldhalaalinayaa color fiican ayuu wuxuu saarayaa maxaa la yiraahdaa aad iyo aad ayuu soo muujinayaa kan kale ugu dambeeya ugu koreeya asigana waxa waaye exposure ayaa la yiraahdaa exposure ka wato markuu ugu koowaad waa marka hore inaad soo habeysataaba muuqaalkaaga inta aadan yani inta aadan video inta aadan jaab soo gelin barnaamijka waa in muuqaalka marka aad duubayso waa waxa ugu koowaad exposure kaaga inuu yahay meeshii la rabay midaalaan iftiinka iyo mugdiga in isu dheelatiran yihiin oo meeshii la rabay ay yihiin hadii uu noqdo under exposure hadii uu yahay muuqaalkaaga yani way adkaanaysaa markaas hadii uu over exposure yahay aydan kaba sii daran buu macnaha waxa laga yaabaa inaad muuqaalkaasi wax uu ku tari waayo marka intaas markaan soo sameeyno blackski ayaan kor u soo kicinaynaa whiteski maxaa la yiraahdaa ayadana sidoo kale kor ayaan u soo kicinaynaa waxa kamid ah shadowski highlight-ki ayaan ayadana sidoo kale kor u soo qaadaynaa contrastig waxaan ka dhigaynaa midaalahan 30 25 30 40 camal ayaa ka dhigi kartaa exposure-ka hubinaysaa hadii okay exposure-ka looma baahna marka inaad hoos u dhigto ama kor u qaado kadib ayaan waxaan u gudbaynaa waxa la yiraahdo color grading marka waxa waaye waxa adeegsan kartaa qaarkood barnaamij aniga hadda barnaamij ayaan haystaa la yiraahdo Magic Bullet oo ay adeegsadaan maxaa la yiraahdaa dadka professionalka ee muuqaalada maxaa la colorka saara hadaad waxa adeegsan kartaa DaVinci Resolve ayagana waxay leeyihiin qayb dhan oo maxaa la yiraahdaa ayagana loo adeegsado oo la yiraahdo colorista barnaamij la yiraahdo ay leeyihiin oo ayagana maxaa la yiraahdaa muuqaalka si fiican ayagana aad iyo aad yani u muujinayo u qurxinayo marka hadii aan markood waxaan soo sameeyay maxaa la yiraahdaa color correction-ki aan soo sameeyay kadibna waxaan sameynayaa hadda color grading
color grading marka barnaamijkan ayaan galayaa markii aan galo magic bullet waa soo qaadayaa marka waan dul saarayaa marka asigana wax baan ka badbedelayaa marka intii aan ka arki karo maxaa la yiraahdaa sida muuqaalka ii muuqdo markii aan ku qanco ayaan leeyahay markaas ayaan muuqaalkii soo saarayaa marka sida ayaa loo sameeyaa muhiimadda koow waxa waaye inaad samayso color correction oo ah 6 qaybood blackiska whiteska shadowska highlightka contrastka iyo exposureka 6daas qaybood ayaa ugu muhiimsan marka koowaad in aad samayso kadib color adiga ayaa saaran kara haday aad rabto oo waxa sameynaysa marka inta samayso kadib waxa uu ziyaadinaysa bas saturationka waxa la yiraahdo oo marka ziyaadisid colorkii uu ku saaran yahay marka color gradingna marka waxa la yiraahdaa taa ayaa la yiraahdaa oo markii yani la saarayo colorka midabadii ayaa la saaraya marka cagaarkii buluugii jaalihii guduudkii buluugii ayaa la saaraya ama intaan kalentood oo 6dan kalentood waxa waaye waa iftiinka iyo mugdiga cadaanka iyo madowga waaye intaan ay shaqo ku leeyihiin marka fiirisid 6dan qodob waa 6 ugu muhiimsan waaye marka in macna qofka uu sameeyo maxaa la yiraahdaa marka uu saarayo color marka color correction ka ayaan soo sameeynay color grading hadana magic bullet ayaan ku sameeynay oo barnaamijka ayaan dul saarnay sida ayuu marka colorka uu noogu qurux badnaaday hadana muuqaalkii ayaan idin tusinayaa ila fiirsada before iyo after macna sida uu kala yahay maxaa la yiraahdaa muuqaalkii hore iyo kan hadda aan soo saaray markaan kala saaro sida aragtaan difference weyn ayaa u dhaxeeyo muuqaalka markii yani habkan loo duubo professionalka ah cinematography adduunka isa ay u duubaan sida marka aragta Hollywood ko kale filimada oo kale markii la duubayo sidan ayaa loo duubaa oo maxaa la yiraahdaa colorka habkan ayaa loo saaraa kamerada marka hore waxa laga dilayaa ama laga qaadaya maxaa la yiraahdaa inta aadan colorka ayaa laga gaabinayaa oo barnaamij ayaa ku jira oo sida midalan S-Log oo kale ayaa soo qaadanaysa marka S-Loggaas oo kale tood waxa isticmaala Sony kamerooyinka Sonyga Canon tan maxaa la yiraahdaa ayagana waxay isticmaalaan barnaamijyo kale intood oo ayagana maxaa la yiraahdaa kamerada colorka ka yareynaya hadii aad rabtid sidaan oo kale inaad u duubto muuqaalka marka hore colorka si aad uga dhinto si hadhow adiga colorkaada u saarato oo aad u samayso color correction iyo color grading waxaan rabay inta inaan idin la wadaago maantay muuqaalka aad iyo aad u mahadsantihiin dhamaantiin waxaan idin ka codsanayaa in aad subscribe saartaan channelka aad iyo aad u mahadsantihiin